والله هو قيرودا horta heeskaasi marka xitaa anigoo qaad marka meel ka maqlo waa qeyrooda sababtoo ah heeskaasi wuxuu difaacayaa badda Soomaaliya waa Soomaaliya hadlayso marka la soo koobi karo dareenkayga sidoo noqdo marka aan ama qaadayo ama aan maqlo meel ka shidan tahay taysan badda inay maxkamadda ICC ka qayb gashay diidan tahay waa badheere Soomaalida waxa ku mahmahdaan in shantaadu ka reebay sharci kama reebo Kenya waynu garanaynaa awoodeeda ciidan iyo awoodeeda siyaasadeed labadaba anigu oo ma arko Kenya inaynu wax wada hadal oo dambe aan cadaalad dambe u raadino waxaan leeyahay oo ugu baaqaya Soomaaliya meel kasta ay joogto in loo dhaqaaqo dalka sidii loo difaaci lahaa Kenya bareer bay wadaa maanta inama ay hungureen karteen dawladihii markii dawladii Soomaaliya ay xoog galahayn inugu hoos noolabay ahaayeen maanta shacab ahaan dumarka Soomaaliya ku filan xitaa rag u dirmayna Kenya la dagaalama haweenka Soomaaliyeed baa loo dirayaa annagu xalay waan laga gobolada waqooyi shir jiray gobolka Banaadir ku qabanay anagoo badda ka hadlayna ICC maxkamadda cadaaladda adduunka cadaaladda ka codsanayna waxaan leenahay war doorashadan aynu ku qamaamsanahay suurtageelna halalaalo dalkana ololaha la geliyo ciidamada ololaha lagu qoro dhalinyarada Soomaaliyeed muddo iyo dibad meesha joogtana waa inay noqdaan naftooda horayaal Kenya lagu jeesto saasa Soomaaliya ugu baaqaya haddaan ka dhiibto fikir arrinta badda muranka ay gelisay baddeena muxuu ahaa Kenya ay gelisay oo muddo badan ba soo jiitamaysay runtii in badanna ay diidanayd kana cagajiidaysay jaaxadnimo iyo muxuu ahaa maaragtay madaxaday fara badanna ay horay u muujisay ugu dambayn berri oo ballantu ay tahay dhagaysigii badda in ay diido tiraahdo muxuu ahaa qareennadii iyo madirsanaya muxuu ahaa ii sheegay waftigii meesha ka qaybgeli lahaa waxay caddayn u tahay markhaati madoonto ah Kenya baddaasi xoog bay ku doonaysay xaq oomayna lahayn saa caddaatay Kenya ayadaa qiratay inayna baddaas ayna lahayn ayadaa qiratay maxaa yeelay 4 jeer bay dib u dhigtay dacwadda badda dhagaysigeeda 4 jeer bay dib u dhigtay in badda laga wada hadlo intaa way diidanay markii u dambaysay go'aanka u dambeeyey oo maxkamaddu ay gaartay in muxuu ahaa lagu kala baxo dhagaysiga badda hadday tiri waxba dirsan maayo meeshaas waxba kuma hayso wax gacno ugu jira ma jiraan xoog bay doonaysay xaq mayna lahayn sidaa darteed adduunka iyo dadka shacabka Soomaaliyeed waxa u caddaatay Kenya baddaas xoog bay ku doonaysay annaguna waa noo caddeed Ilaahay maadi awalba waa noo caddeed muxuu ahaa ii sheegay shaki noogama jirin laakiin haddii adduunkana inaan qancino ayada lafteedana la qanciyo la samriyo saasay ahayd marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay tiraahdaa waan diiday baddana annaga iskale aniga magacaygu waa Daahir Ibrahim Roble oo ah muwaadin Soomaaliya badda Soomaaliya iyo Kenya isku hayaan waxaanu arkaa aragti khaldan badda annaga iskale Kenya ma hunguriyay karto hadday isku daydo inay dalkayga hunguriyeysona waxaan si cad uga soo horjeednaa inaan geli karin xoog baan ku qaadaynaa dumarka ka adag Kenya Soomaaliya baddan Soomaaliya iskale waxaan aad uga xumahay anoo Soomaali ah oo baddaydii leh dawlad daris ila ah oon ogahay sida ay tahay iyo tabarteeda in dad noocaas oo Ilaahay abuurtay oo haddana aad u liitay inay dalkayga iyo baddayda aniga ugu qabsadaan qayb ka mid ah si runtii aad iyo aad waxaan uga xumahay hawaysiga iyo hawaysad Soomaalida waxaan uga hadlaa Soomaalida waxaan leeyahay waxaan loo hawaystay si aan caadi ahayn hadda koor waxa jiray nin wuxuu u yimid nin u yimid marka waxaan rabaa Kenya in sidii oo kale lagu sameeyo markay badda ka doodayso ninka badda u doodaya in sanka laga taabto markii sanka laga taabto oo sanka ka dagaalamo in la yiraahdo baddana u doodaysa sankaada foolxumada badan u dagaalamaysa badda Soomaaliyana waa u doodaysa waxaan ka filayaa maxkamadda adduunka ee Hague inay xukumi doonto oo dadkii iskala ay siin doonto oo Soomaaliya iskala ay siin doonto annaga iskala oo dadka Soomaaliyeed inay nasiin doontaan ka filaa duud siyaarabo annagu diidnaye ogo qaranimada waxaan maqli jiray dalkayga waan jeclahay dadkiisa waan jeclahay cadowgiisa waan necbahay war waxaad ka tagtay xumaanta waan la dirirayaa samanta waan la doonayaa
dalkayga waa jeclahay baddiisa waa jeclahay warwariya dhammaantiis guud ahaan dhulkeenna bad iyo berri iyo beer ciddii nagu qabsatoo ku soo xadgudubtaa waa ka shallaayaysaa arya waa sidaad sheegtay kenya waxaa ku dhacday oo hore loo yidhi doofaarkii nin daabana wey